السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحابتي أنا السلام يا إن شاء الله تعالى بات وحان دوني أنا إذن لو ذاقو برنامج ku saabsan qaabka ugu sahlan ee lottery loo buuxsado ama programkiisa American oo sanadkiiba mar October ay furaan way ugu talagaleen in 50,000 oo dunida ay ka qaataan dada kuwaas oo nasiibkooda u saacido asxaab badan ayaa su'aalo waxay iska weydiiyaan qaabka tiisaha loo buuxsado ama lotteryga meelo badan oo magaalada Muqdisho ama gobollada Soomaaliya qaybo ka mid ah waxaa jirta nasiib xumo in dhalinyarada lacag looga qaato $25 meelo badan oo Muqdisho ka tirsan inta badan xansaday waan maqlay inkastoo aan dalka joogin waana ka xumahay waa qaab fudud oo run ahaantii qofkii raaca casharka aan maanta samayn doono wax badan oo aan aaminsanahay inuu ka fahmi doono maadaama uu maaragtay aad u sahlan yahay oo aad u fudud yahay insha allahu tacaala casharkaan raacaynaa waxaan ogaanaynaa biidnillahi tacaala qaabka ugu sahlan ee loo buuxin karo iyo waddada saxda ah ugu horeyn waxa aad tegaysaa photo size ayagu ay u baahan yihiin ayaa jiro oo footooyinka inta badan waa ay yaqaan waa 600 lagu dhuftay 600 size-ka sawirkan waxaa la rabaa quality-giisuna aad u fiicnaado size ahaan waa intaas maxay taas footooyinka kala xiriiri doontaan laakiin waxaa idin sharaxaya insha Allah sawirna waan tusi doonaa testiga qaabka looga baahan yahay iyo habka aad u buuxsan doonto si natiijada ay kugu wacnaato waxaa dhici doonta in dad badan ay ta buuxsadaan mar alla markii ay natiijada usoo baxdo oo nasiibkooda uu fiicnaado oo laga yaabaa inaad Soomaaliya qofka joogo usoo baxo haddii uu kasoo tago oo soo aado tusaale ahaan Nairobi asbaardu isku taala waxaa dhici doonta ama inta badan dhacdo in qofkii dib loogu celiyo la yiraahdo nasiibka waad ku guuleysatay laakiin sawirka aad ku gashay lotteryga ma ahan sawirkii loo baahnaa saa darteeda qofkii dib ayuu uga laabanayaa dhammaan maaragtay wixii qarashka ka soo baxay iyo wixii maaragtay nasiib daro midda kale waxaa dhacda in maaragtay iskhilaaf uu yimaado oo qaladaadka aan doonaya inaan dhalinyarada u tilmaamo ka hor intaan tusin qaabka loo buuxsado tusaale ahaan waxaa dhici karta baasaboorkaaga inuu ku qoran yahay 1 bishii 1992 ama 93 lottery formka markaad buuxinaysa waxaad ku qortay inaad dhalatay waqtigii baasaboorka iyo waqtiga aad lottery ku buuxisay inay iskhilaafaan run ahaantaasna dhibaato kugu keeni doontaa markii nasiibkaaga uu wacnaado arrinta labaad saddexaad waan rabaa inaan kala hadlo waxay tahay in barnaamijka ku saabsan yaa xaq u leh ama yaa nasiib u leh oo lottery inta badan ay qaataan taas run ahaantii dad badan oo maaragtay asxaabta fikir khaldan ay ka aaminsan yihiin in maaragtay dadka aqoonta leh ama jaamacadaha ka soo baxay ama wax bartay ama maaragtay da'da yar keliya inay qaataan Mareykanka xaqiiqatan waa fikir aad u khaldan aniga nafsiyan dadaan u buuxiyey waan arkay oo sanadkii hore qaybo ka mid ah usoo baxeen da'an maanta laguma xulan aqoon laguma xulan inkastoo sanadkan hadda 2018 ka xareysanayo shardi tahay inay ala aqal shahaado wataan ama dugsi sare ama jaamacad heerka koowaad ama heerka labaad ama wax diblooma ah oo takhasus qofka uu qaatay way jirtaa marka yaa kala xulo dadka runtii 50,000 oo qofood markii loo baahan yahay in la xulo waxaa codsiga diibanaysa ala aqal 2 milyan ama 3 milyan oo dad codsiga diibanaysa 50,000 laga soo dhaxsaara marka 50 yaa xulo waa su'aal runtii xaqiiqatan ma hayo jawaabteeda saxda ah laakiin in badan waxaan maqlay maaragtay ama dad badan oo iga aqoon roon ay ka sheekeynayaan maqlay in wax kala xulaya uusan ahayn bini aadan oo system computer oo dadka kala saarayo uusan u fiirinaynin yaa macluumaadkiisa saxan yihiin tusaale ahaan qof macluumaadkiisa saxan yihiin laga yaabaa in uu dhaco ama aan nasiibka saacidin qof macluumaadkiisa qaldan yihiin oo nasiibka uu saacido oo mar alla markii uu dalabkiisii wixiisii bandhigto safaaradda uu iska xaadiriyo kadib loo sheego in saaska sawirka wixii dhan ay ka qaldan yihiin ama warqadda iyo qaabka uu buuxiyey qalad uu ka soo baxo asigoo caruur leh in caruur ma leeyihin uu dhaho mahaantii ayaga backgroundkaaga ma ogaan karaan laakiin adigaa lagaa rabo mar kasta inaad qaab taxadira u buuxsato ama u xareysato insha Allah waxaa kaloo maanta idinla wadaagi doonaa qaabkee lagu aqoonsadaa ama qaabkee natiijada loo helaa waa su'aal aad muhiim ah in
waa buuxsatay warqad waxaa jirta markaad buuxsato printer garayn doonto warqadaas waxay kaa saacidi doontaa ama ay kaa anfici doontaa waxaa ku qoran confirmation numberkaas waa lambar dheer oo xarfo iyo maanta isugu jiro lambaro wuxuuna ka bilaabanayaa sanadka aad xareysatay tusaale ahaan 2017 haddaa xareysatay 2017 ayuu maaragtay naqanayaa xilliga natiijada marka asiga ayaan isfasiri doonaa inta badan wax badan oo sharxaha taas ma baahna warqadday ku wada qoran yihiin dhammaan macluumaadkaas midda kale xigta waan raba inaan isuugtaaga waxay tahay qaabkee lagu gartaa qofka inuu guuldareystay qaabkeena lagu gartaa inuu guuleysto tusaalaha qaybta dambe maaragtay barnaamijkeena aan kaga hadlo laakiin marka hore waxaan isku dayayaa inaan bilaabno qaabkii aan buuxin insha allah lesson ugu horeyn pageka sida ay idiin muuqato waa kan waa www.db.state.government ama .gov/application.asx waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waa sida halkan baad uga jeedaan marka ugu horeysa waxaan gelinaynaa koodhka yarka ah oo muhiim ah MIT maanta korka waa gelinay pageka qaabkan ayuu noogu soo baxay halkan waxaa loogu baahan yahay last name ama family name waxa ayuu yaqaanaan laakiin oo ah magaca ugu dambeeyo tusaalahaan soomaalida inta badan magac saddexaad aan leenahay maxamed xasan faarax oo kale gelinaysaa haddii maaragtay aadan magac saddexaad leeyahay inta badan soomaalida magac saddexaad way leeyihiin laakiin haddaadan lahayn last name ama family name waxaad leedahay halkan ayaad check saaraysaa oo aad leedahay no last name malihi wax magac saddexaada waxaad markaas gelinaysaa first namekaada iyo middle namekaada oo magacaaga labaad ah halkan waxaan gelinaynaa tusaale ahaan hadda waxaan rabaa inaan qaab tusaale ahaan ay kugu sharaxo ma doonayo qof inaan booskiisa xayiro oo konton kun qof nasiibkiisa saacidi lahaa inaan aniga micna dara kaga dhumiyo oo haddii la qaato xataa qof booskaas geli lahaa inaan xayiro marka halkaan ka bilaabanaa waxaan leenahay waxaad isku daydaa qaabka haddii baasaboor aad leedahay qaabka uu baasaboorkaaga uu qoran yahay xarfaha in aad u qorto inta badan luqadda ingiliishka ayay timaadeen kan waxaan iska leenahay aadan kan waxaan iska leenahay midhamaan kadib hoosaan usoo degaynaa maay finaal waa wax badan kaga sharix maay midaan waad karan kartaa maay in ama maay kadib halkan waxaad gelinaysaa waqtigaa wadatay halkan waa sanadkii halkan waa maalinkii halkan waa bishii inta badan soomaalida waqtigaan badanay xaqiiqatan cid diiwaankiisa ma laha dagaalo iyo walaalo fara badan oo soo maray cid hadda horta waqtiga ay badatay waxaa waaye dadka qurbaha ku dhashay taariikhaha ay dhashay way yaqaanaan inta badan dadkii hore laakiin dadkaan maaragta dhalinyarada wixii burburkii ka bilowda ahaantii lama hayo taariikhdooda laakiin inta badan baasaboorada waxay ku samaystaan kowda bisha koowaad iyo sanad oo tusaale ahaan sanadku waa la iska yaqaanaa 1993 iska gelinaya halkan waa halkee ku dhalatay waa caasimada muqdisho okay waxaan soo degno halkan waa wadanka aad ku dhalatay Soomaaliya qofkii meel kale ku dhashay maanta meesha kale ku dhashay gelinaya Soomaaliya hadhown waxaa markii aad safaarad tagto kusoo baxo lagaa doonan doono xitaa inaad haysato dhalasho iyo sugnaan inaad wadanka ku dhalatay halkan sideeda ku daynayna sababtoo ah halkan waxaa ku jiro dhammaan wadamada loo ogol yahay in laga soo xareysto loo tiriyo wadamo aanan loo ogoleynaa jirto sababo jira awgeed waxaa ka mid ah wadamada sida sanadkan Nigeria oo kale iyo wadamo badan oo ay ka saareen jiro maxaa yeelay 5 sano ee la soo dhaafay waxaa wadamadaas iska soo diiwaan gelisay ama Mareykanka soo gashay 50,000 oo qofood marka dadka sanadka tusaale ahaan haddii sanadkan Soomaalida
ay 50,000 oo qofood ay ku guulaysato ama sanadaha soo socdo 5 sano ay soo socoto 50,000 ee qof ee Soomaaliya hadday gasho Maraykanka ayna ku gasho nidaamkan DV lottery ama program visa waxaa dhici doonta in sanadaha soo socdo qaybahooda hore in la joojiyo dib laga fasixi doono maaqaan qaybahooda hore in halkan lagu soo daro laakiin halkan mahaantii yes ayaan saaraynaa ama yes sidiisa ku deenaynaa halkan waxaa lasoo baahan yahay sawirka mahaantii shuruudo iyo nidaam u gaar ah jiro halkan aad kasii raaci kartaa haddii tusaalahaan aan ku dhigto oo wax yar aan ka taabto ayadana photo requirements ama suura mutaqallibaad sawirada loo baahan yahay waa sawiradee qaabkeena looga baahan yahay inuu qofku usoo diyaariyo sawirada maxaana lagu xaqiijin karaa hoosaan usoo degaynaa halkan start order tiraa waxaa soo gelinaysaa sawirkaaga oo maantii koob lagu sameynayo ama maaragtay la jarayo qaabka ay ayaga rabaan halkan tusaale ahaan haddii halkaan ku dhigto start photo aan idhaahdo marka waxaan dooranaynaa choice photo sawiraan soo dooranaynaa saa badan waaye inaan ka caawiyo halkan ku jirto sawirada waa isticmaalinaa aan dooranaynaa saan halkan sawirka koosaan usoo galo waxaan sameynayaa dib waxaa loo baahan yahay in wejiga oo halkaan ku beegmo sida ay halkan tuso qaabka loo baahan yahay qaabkan sida saxdaa sidaan weeye in wejiga uu toos daairada koowaad u buuxiyo uusan ka dhex bixin in sidaan aysan bixin meesha istilaabka saaran tahay sidaan waa sidaan loo baahnay sidaanna waa sidaan loo baahnay sawirka aad ayuu kaamirada ugu dhow yahay markaan aad ayuu uga fog yahay looma labadaba waxaa la rabaa sawirka inuu sidaa tig u saarnaado ama sax u saarnaado okay markii aan saan halkaan ugu buuxiyo waxaan leeyahay crop oo ujeedaa sawirka waa uu saxan yahay automatically complete sawirka waa uu jarayaa qaabka loo rabo asiga ayaa ii diyaarinaya linkigan ayaan soo raacayna waa qaabka waa sida usoo jaray waana sida saxda ah markii uu sidan kuugu diyaariyo wax lagaaga baahan yahay waxay tahay save photo inaad ku dhufato qaabkii uu usoo jaray kadibna aad meel kamida computerkaaga ku save garaysato okay ma kusii dheeraanaya qaybtan sawiradee loo baahan yahay marka oo tusaale ahaan haddii aan sawirada diso qaabka sawirada loo baahan yahay waxaa kamida okay qaabkan tusaale ahaan qoorta waa inaysan qofka qalloocin garbaha waa inay isla sirnaadaan sidoo kale waa sidaa meesha waa 600 lagu dhufto waa inuu ahaadaa sawirada aadka maanta u fiican sida gabdhaha waa midkan tusaale ahaan gabadha Soomaaliyeed waa muxajabad iska xijaabanaysa wax kale maaha madaxeeda inay fiirto qasab maaha wiilkan sidaan laga doonaya in gabdhihiisa qoortiisa isoo naysanadaan background-kana waa cadaan okay groups-kan aan sii wadanaynaa choice file halkan waxaan dooranayaa sawir aan isticmaalo tusaale kan dooro waan soo geliyay sawir sida inaan dhigto waan soo geliyay sawirkan soo geliyay halkan magaciyo saddexaad ayaan markale ku qoraynaa magacii hore ayaan usoo gelinay waa
sida saxda ah ee loo baahan yahay in maaragtay loo buuxiyo magaca oo fuula. haddii laba magaca kor kusoo sheegtay halkan labada magaca laga rabaa address halkan waxaan iska gelinayaa Mogadishu adresska labaad waa ka boodi karnaa city kalaatan waxaad kusaysaa caasimada meesha aad markaas joogto Mogadishu waxaan kusaynaa Mogadishu waxaa iska dhigi kartaa banaadir Soomaaliya degmada markaas aad joogto zip postal code maanta Soomaaliya magaca postal code halkan ayaad no postal code ka gudbaysaa halkan waxaad markale gelinaysaa waddanka aad joogto ku nooshahay ma aha meesha ku dhalatay kala duwanaan karaa maanta hoosaan soo degaynaa halkan waxaan gelinaynaa meesha aad markaas ku nooshahay waa halkan waxaan gelinayaa telephone number kaasaad waxaaleynaysaa halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga maalintii hore aan email u geliyay inaan ka isleeyaa sababtoo calaamada u saare wax kale maaha uu diidan yahay inaad gacan maanweyn haa u gelisaa diidanya halkan wax barashadaada halkan haddii aad primary school aad haysato shahaado dugsi sare high school aad haysato soo lahaa shahaado dugsi sare aad haysataa waxa waad baratay laakiin ma haysat shahaado waxna waa baratay iskoolka qabyada uga tagtay halkan aad saaraysaa hadaad wax baratay oo shahaadada aad haysa halkan aad saaraysaa high school degree aad haysato haddii professional aad haysatid school some university course salahan jaamacadda maada dhamaystirin halkaana waad dhamaystirtay shahaadaad ka haysataa master ilaa some doctoras haysataa doctor maad dhamaysatay markaana maada dhamaysan doctorada jaamacadda salahan waxaa iska gelinaa primary school halkan ma guursatay halkan waa muhiim run ahaanti haddii aad guursatay xaas oo ay ku nooshahay dalka Mareykanka run ahaantii halkan ayaad saaraysaa waxaad leedahay waxay ku nooshahay dalka Mareykanka laakiin ma haysato deganaansho Mareykan halkan waxaad gelinaysaa waa haysataa haddii xaaskaaga jirto halkaas haddii maaragtay aad kala tagteen gabadha aad qabtay halkan si legal sharciya haddii waxaa laga arabi doonaa warqadda furiinka halkan unmarried maba aan guursanin okay hoos halkan hadaad unmarried soo dooratay caruurta waxaa laga rabaa meeqa caruur aad leedahay soo lahaa ninaan ka hor soo saaray jeega ma guursanin haddii uu caruur halkan kusoo problem ayay leedahay haddii uu caruur leeyahay caruurta lambarkooda ayay gelinayaan inaan guursaday inuu soo furay dhan waa cadaynayaa halkan waxaan ku qorayaa maadaama aan ma guursanaa soo doortay zero qoraya continue run ahaantii waqti kooban oo hal saac ayaad haysataa haddii hal saac aada si sax macluumaad ku buuxinin koob ayuu kaga soo bilaabay halkan mar kale iska xaqiijaya kuleeyaha aad soo gelisay last name family name sanadka aad dhalatay meesha aad ku dhalatay meesha aad ku nooshahay meesha aad kasoo xariisatay sawirka adareyskii buuxa macluumaadkii oo dhan halkan aad soo gelisay mar labaad iska hog ayuu kuleeyahay kadib waxaad leedahay haddaad intaas hubiso submit wuxuu ku siinayaa number congress number iyo maaragtay waqtiga natiijada aad heli doonto warqaday ku kusan tahay run ahaantii ma doonayo inaan maaragtay fursad khasaariyo qof kale uu ka faa'iidaysan lahaa laakiin waxaa idin tusayaa warqadda uu siin doono
warqadan maantii warqada qaabkan ay tahay confirmation number waa qariyay xaqiiqatan waqtiga natiijada ay soo bixi doonto iyo inaad ku guulaysteen isdiiwaan geliso warqadan ayaa laga rabaa maanta inaad xaqido meel ka mida computerka aad ku hayso ama aad daabacato si beri aad natiijada ula socoto okay waxaan doonaynaa qofkii uu isdiiwaan geliyey waqtigii natiijada iyo wixii uu eegan lahaa waa la gaaray siduu ku ogaanayaa inuu guulaystay ama inuu ku fashilmay oo uusan ku guulaysan okay halkan maantii warqadan waxaa laga soo dirayaa saaxiibana confirmation numberka waa kan wuxuu xareystay 2017 maantii natiijadiisa waa fashil ama wuu guuldareystay waxaan rajeynayaa xilligan uu ka faa'iideysan doono laakiin hadda waan ku baraatikeynayna waxaan ku ogaaneynaa qaabka aan ku heli karno natiijada iyo waxa looga baahan yahay okay linkiga oo maantii qaybta hoose video baa idin dhigi doono ayaad raacaysaa page cusub kadib halkan waxaa laga doonayaa combination number okay gelina combination number halkan ayaa soo koobinayaa combination number waan geliyay last name okay last name waa last name ama family name okay waan geliyay sanadka u dhashay waa online hoosode korkaan yarkaan xaqiijino 50 hawino halkan waxaad ujeedaa has not been selected ama lama dooranin kuma guuleysanin haddii la doortay halkan way isbedelaysaa farta waxay noqonaysaa far cagaar ah halka ay hadda alaag ka tahay waxayna noqon doontaa selected ama waa la doortay qofka markii uu selected arko marka uu geliyo kadib xaqiijintiisa waxa keliya looga baahan yahay waxay tahay in uu tago safaaradda maraykanka isigoo dhammaan macluumaadkiisa qaadayo oo ay ka mid tahay baasaboorkiisa oo rabo inay iswaafaqsan yihiin waqtiga dhalashada qofka iyo sugnaanta in haddii xaas uu hore u furay inuu xaqiijiyo haddii uu jaamacad iyo waxbarasho xaqi oo bartay waa inuu shahaadooyinkiisa ama dugsi sare ama wixii uu wato uu geeyo ama xifrada oo wax ku bartay asxaabta waxaan rajeynayaa in cashirkan kooban run ahaantii aadna muhiim u ah inaad wax badan ka faa'iidaysteen waxaan rajeynayaa in qeybaha dambe oo aan kaga hadli doono casharo muhiima shabakaddeena aad ku taxnaataan subscribe haddii aadan horay member ooga ahayn ama aadan subscribe hore ugu sameynin si aad wax walba news ku hesho haddii aad maaragtay cashirkan ka heshay like si asxaab badan ay warto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.